waxaad aragtaan dadkii walaalihiin ahay oon waayahan oo dhan idinkala hadlaayay xaaladda ay maanta ku sugan yihiin qorraxda ay taagan yihiin duruufaha ka muuqda abaarta waddankan saamaysay waa abaar lug ku yeelatay ugu yaraan nus shacabka Soomaaliyeed dhammaantood dadkan aad ku aragtaan bannaanka magaalada Muqdisho hadda oo aan taagannahay waxaa jira dad kale oo badan oo sidaas oo kale ah oo Soomaaliya oo dhan meel walba oo aad ka tilmaantidba dhibaatadaas iyo mid lamid ay haysato waxaan marka hore u mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga oo walaalahood u soo gurmaday sida aan u bilownay arrinka gurmadka abaaraha markii aan ra'iisul wasaaraha noqday kadib waxaana soo gaaray caawinaad aad u badan waxaana soo gaaray dhaqaale waxaana soo gaaray caawinaad waxaana soo gaaray raashin aan u qaybinaa dadka waxaa kaloo u mahad celinaynaa adduunyada oo iyadana la xiriirnay oo kaalmo yar ayagana na soo gaarsiiyey laakiin bilow ah waxaan idin sheegayaa waxa aan hayno iyo dhibaatada waxa badan dhibaatada sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan kula talinayaa una sheegayaa inay lagama maarmaan tahay inaan dib isugu noqono inay lagama maarmaan tahay inaan ka fikirno dad walaalaheena oo dalkeenna ku dhimanayo sida aad maqashaan mar walba waxaan ku soo celceliyaa dadka Soomaaliyeed sababtoo ah waxaan aaminsanahay sida kaliya oo dhibku uga bixi karno inay tahay annagu inaan isku tashanno cidda wax keenaysana annaga inay ahaato cidda qaybinaysana annaga inay ahaato laguma noolaan karo baryo cid ma baryi karno sidaas daraaddeed haddii aad xoolo haysato fadlan xoolo keen haddii aad kiilo bariisa bixin karto bixi haddii aad kiilo bura bixin karto bixi haddii dhar badan aad haysato aadan isticmaalin qaar keen haddii aadan wax awoodin fadlan dadkaad u soo ducee maanta wuxuu marayaa dalka Soomaaliyeed inaan aragno carruur yaryar oo dhibaataysan hooyooyin dhibaataysan aabbayaal dhibaataysan oo u dhibaataysan biyo ay cabaan iyo waxay cunaan ma laha haddii aanan dadkeenna ku kaalmayn karin inaan nafta ku celinno dad noocee ah ayaana waxaan ka codsanayaa qaybaha kala duwan ee bulshada dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaa khatar ku jirta taariikhda ummadda Soomaaliyeed waxaa khatar aan u hortaagannahay karaamadii ummadda Soomaaliyeed waxaan mar walba idinkugu yeerayaa mar labaad idinkugu yeerayaa inaad dadka walaalihiinna garab istaagtaan dhibaatadan soo noqnoqotay ee haysata ummadda Soomaaliyeed koow waxaan u baahannahay haddii aan Soomaali nahay inaan ilaahay u noqonno ilaahayna aan barin ilaahay inaan u noqonno dembi dhaaf aan weydiisanno ilaahay aan u noqonno aan weydiisanno inuu naga cafiyo dhibkii aan annagu isu geysanno labo waxaan u baahannahay inaan annagu isku tashanno sidaan hore u sheegay saddex waxaan u baahannahay sida ugu dhaqsaha badan inaan isugu gurmanno waddanka qaybihiisa kala duwan ama xukuumadda ama madaxweynaha ama baarlamaanka ama aqalka sare labada aqal ee baarlamaanka kulligeenba shaqadeennu inay noqoto maalmaha wiigaga iyo bilaha soo socda in loo gargaaro dadka Soomaaliyeed marka aan dadka nafta ku celinno ayaan qaban karnaa wax kale walaalahayda miidiyada ay hor taagan bahda saxaafadda waxa la soo gaaray waqtiga dalkiina iyo dadkiina u helin karteen maanta ayaad mudan tihiin inaad dadka iyo dalkan u heelisaan haddii laga fikiro warbixin siyaasadeed ama warbixin wax kale maantay dad baa dhimanaya warbixinta aad ka fikiraysaan ha noqoto sida dadka loo badbaadi lahaa sida ummadda Soomaaliyeed ugu soo jeedin lahaydeen dhibka meeshan yaal dadka Soomaaliyeed dalka dibaddiisa ama gudihiisa jooga guryo hoose dhex jooga ama dhaqaale haysta ama nolol fiican haysta waxaan idin sheegayaa saacad walba qof Soomaaliyeed ayaa khatar ugu jira inuu naftiisa waayo intaas ka soo waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan u sheego waddankani wuxuu u baahan yahay in dib looga shaqeeyo waddankani wuxuu u baahan yahay inaanan ku mashquulin abaar sidaan wax uga qaban lahayn wuxuu u baahan yahay inaan dalka dib u dhisno
wuxuu u baahan yahay inaan beeraheena falanno wuxuu u baahan yahay inaan kalluunka waddankeena ku jira aan la soo baxno wuxuu u baahan yahay inaan isku tanaasulno wuxuu u baahan yahay inaan aqbalno inaan waddanka wada leenahay qaybsanana khayraadka waddanka waxaan u baahannahay walaalayaalow dadkii Soomaaliyeed karaamad darro ayaa wareerisay dalkii Soomaaliyeed dhibaato ayaa wareerisay madaxda ummadda Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa inaan shacabka Soomaaliyeed annaga ugu hormarno sida aan uga shaqayn lahayn dalkeena sidoo horumar ku gaari lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan xasuusinayaa haddii aad ku soo korteen abaar gaajo iyo xabad dalkana wuxuu leeyahay taariikha inuu ahaa dalka Afrika ugu wanaagsan taariikha inuu dunida ugu horumarsanaa dadka Soomaaliyeed waa dad aad u karaamaysan aad u adag dhibaatada ay u soo dul qaateenna ma jirto cid u dul qaadan karta sidaas daraaddeed waxaan codsanayaa walaalayaalow inaan isu nimaadno isgarab istaagno ka shaqeyno dalkeenna sidaan annagoo wada leh u dhisi lahayn cadaaladda waddanka uga shaqayn lahayn musuqmaasuqa ula dagaali lahayn haddii ilaahay yidhaahdo xukuumaddaydu waxa ugu horreeyo ay ka shaqayn doonto waxay tahay inaan idin garab istaago la shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed la shaqeeyo qaybaha kala duwan oo bulshada si abaartan looga hortago kadibna looga fikiro sidii aan uga shaqayn lahayn inaanay dib dambe noogu soo noqon sidaas daraaddeed waxaan mar kale idinka codsanayaa inaan ilaahay u noqonno ilaahayna barino waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo isku dhaqana isku diina isku midab ah wax naga halaysan male dalkeenna khayraad baa ilaahay ku manaystay waxaan naga halaysan kaliya annaga is aamini weynay ismaamuli weynay waqtigaasna alxamdulillah waa ka soo gudbay niyadda hal adkaysto barwaaqo ayaa soo socota niyadda hal adkaysto nabad ayaa imaanaysa niyadda hal adkaysto karaamada iyo sharafta ayaa soo socota inta aan ka gaarayno waxaan loo kaga baahan yahay qofkii jiifana inuu fariisto kii fadhiyana inuu istaago kii istaagana inuu socdo kii socon laana in gacanta annagu aan ka qabanno annagoo isjecel oo walaalo ah hal magac iyo hal gacan oo la yiraahdo gacanta Soomaaliyeed ku wada socono waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh هيا هيا نحن يا قلت الغبطة يلا